Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal halkan nagala socotaan oo barta YouTube ku lehna Calays 24 Post hadii jeer waxaan uga baratay wararka caalamka gaar ahaan sida kala soo Ukraine iyo Russia. Taariikhda maanta waa 26 bishii shanaad 22. Daawadayaal dalka Ukraine waxaa ka socda dagaal aad u ba'an oo lagu hoobtay xubnaan shacab ay ku dhinteen iyo boqolaal ciidamo ah. Ciidamada Ruushka ayaa la arkayaa oo weji cusub la soo baxay, kuwaasoo ku hubeysan madaafiicda goobta dagaalka iyo noocyadii ugu dambeeyay ee hubka casriga ah ee Ruushka hadda uu soo bandhigay. Wuxuu ku garaacayaa noocii ugu dambeeyay ee artilleriga ah, kaasoo reer galbeedka ka yaabiyey. Magaalada xeebta ku taalla ee Mariupol ayaa shacabka isku soo bannaanbaxay iyagoo baroordiiq halkaas u tegay aasas ay ku aasan yihiin qoysaskoodii, halkaasoo boqolaal ay ku aaseen dada ah, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay oo meydadkooda hadda laga helay warshadda birta. Daawadayaal waxaa la arkayay madaxweynaha dalka Ukraine oo afka furtay maantay, isagoo ku dhawaaqay in dalkiisa uu wadahadal la gelayo dowladda Ruushka. Madaxweynaha dowladda Ukraine wuxuu caddeeyay in maalintii ay ka dhintaan 100 ilaa 120 askari, in kor u dhaafaysa. Wuxuu kaloo sheegay in taas ay ku tahay culays aad u weyn, jabna uu soo gaaray ciidankii Ukraine. Daawadayaal halkan nagala socotaan waa barta YouTube ku lehnahay Calays 24 Post hadii jeerna waxaa nooga barateen wararka caalamka gaar ahaan xiisada ka hadlaysan Ukraine iyo Russia. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Mareykanka ayaa wacad ku maray in dagaalku sii socon doono. Dowladda Mareykankuna waxay u qoondeysay dagaalkaas maalin walba inuu ka baxo kharash gaaraya adduun dhan $100 milyan, taasoo u dhiganta bishii inay ku bixi doonto lacag gaaraysa ilaa $3 bilyan. Daawadayaal dagaal qaraar ayaa hadda ka socda bariga dalka Ukraine, gaar ahaan xeebaha. Madaxweynaha dowladda Mareykanka oo safar ku marayay koonfurta Aasiya ayaa isagoo jooga magaalada Tokyo ee dalka Japan wuxuu sheegay in galankii, ama sida loo yaqaano galan ay isticmaalaan dowladda Mareykanka shidaalka, annaga meesha litir ka dhahno, inuu marayo 7.5, taasoo abid halkaa gaarin. Wuxuu sheegay in xagga shidaalka iyo gaaskuba ay qiimahooda kor u kaceen, shacabka Mareykankuna arrinkaas aysan xamili karin. Daawadayaal, xaaladii dalka Ukraine weli far kama qodna. Ciidamada dowladda Ruushka ayaa ku sii siqaya bartamaha dalkaas. Waa meeshii markii hore ay ka soo gureen caasimadda dalkaas markay u sii socdeen ee Kiev. Barigii oo dhan gacanta ayay ku dhigeen. Hadda koonfurta dhinaca Poland ayay u socdaan oo caasimadda ayay wax ka soo gelayaan dhinaca koonfureed. Dhinaca Belarusiyana ciidamo kale ayaa ka soo socda. Ciidanka Ruushka oo hadda weji kale la soo baxay, markii hore wuxuu ahaa weerar. Dabadeed markii ciidamada Ukrainiyiintu ay ka soo baxeen difaacii, ayay ku jabeen dagaalka. Madaxweynaha dowladda Ukraine wuxuu dalbanayaa wadahadal degdeg ah. Afhayeen maanta u hadlay wuxuu sheegay inuu dhaleeceeyay reer galbeedka inaysan ogolaan ama in lala hadlo dowladda Ruushka oo wadaxaajood lala galo si dagaalka loo joojiyo ama xiisadda loo baajiyo iyo dhimashadaba. Halka waxaa ka cad daawadayaal in reer galbeedku ay doonayaan in dagaalku uu sii socdo si halkaas ay ugu wiiqaan awoodda dalka Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa soo bandhigtay diyaaradaha nooca ugu dambeeyay, diyaaradda Sukhoi 57 iyo Su-50, iyo diyaaradda kale oo hubka nukliyeerka qaada oo la yiraahdo T-90. Mar uu madaxweynaha dowladda Mareykanka ku marayay socdaal koonfurta Aasiya, waxay dul mareen hawada Japan, taasoo Jabaaniyiinta afka ay furteen ayna ku tilmaameen waxaan loo dulqaadan karin. Dhoolatuskan militari uu sameeyay Ruushku ayaa ka caraysiisay dowladaha reer galbeedka iyo dowladda Japan, taasoo noqonaysa in dagaalku weji kale haddana uu sii noqdo. Dowladda Kuuriyana iyadu waxay tijaabisay gantaalada nooca ugu dambeeyay, waxayna hanjabaad u dirtay gobolka iyo dowladaha reer galbeedka. Daawadayaal, waxaa sii socda dagaal aad u qaraar oo lagu hoobtay. Hadda dowladda Ruushka waxaa maalin ka dambeysa ku sii siqayaan gobollada dalkaas, guul ayayna ciidamada Ruushku gaarayaan. Guushaasna waxaa ugu wacan baa laleeyahay shacabka Ruushka oo isku duuban, raallina ka ah dagaalku inuu sii socdo si ay u gaaraan hadafkooda ah in aan lagu soo xadgudbin taaka ka mid ah dalka Ruushka. Madaxweynaha Putin oo hadda ka hor yidhi haddii maanta aan cadowga ka hortagi weyno, berri kama hortagi doono. Daawadayaal halkan nagala socotaan waa barta YouTube ku lehnahay Calays 24 Post.